الله naxariistay cabdi xaaji goobdoon oo ahaa qabiir saxaafadeed si weyn looga yaqaan dhulka ay Soomaalidu degto ayaa habeenkii xalay ah ku geeriyooday isbitaalka Daarushifa ee Muqdisho. marxuumka ayaa lagu aasay gudaha isbitaalka Madiina waxaana aaskiisa goobjoog ka ahaa xildhibaano ehelada marxuumka dhintay ururiyaal Israa'iil ciidan. Abuukar xaaji goobdoon oo ehel wadaag la ah marxuumka dhintay ayaa ka sheekay taariikhda fog oo uu lahaa cabdi xaaji goobdoon. saacadu markay ahayd 4 habeenimo salaada subax ka hor ayaa Allah u naxariistay walaalkay cabdi xaaji goobdoon dadku u yaqaan cabdi xaaji goobdoon laakiin magaciisa saxda yahay Cabdiraxmaan xaaji maxamed goobdoon uu ku geeriyooday isbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho. cabdi shalay barqanimadii ayaan wasaaradda warfaafinta wada joognay meel kaabiyaan wada fadhinay ku sheekaysanay ku kaftameynay arrimo famil ka sheekaysanay Allah u naxariisto cabdi wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed wuxuu ahaa ruugcada saxaafadeed wuxuu ahaa nin jecel dhaqanka Soomaalida iyo afka Soomaaliga inuu horumaro wuxuu ahaa nin mataqaanaa ragii la dhihi karo aabayaashii saxaafadda Soomaalida dhidabada u aasay cabdi xaaji goobdoon kamid ah Allah u naxariiste. cabdi wuxuu ku dhashay magaalada Jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya qiyaastii inta u dhaxaysay 738 qiyaastaas oo mataqaanaa oo ku dhashay wuxuu wax ku bartay kuna barbaaray magaalada Muqdisho. xilligaas cabdi meesha ku dhalanay abeena wuxuu ahaa ciidamadii Talyaaniga oo turjumaan ahaa oo mataqaas Itoobiya oo Talyaanigu qabsanayay ahayd. cabdi wuxuu wax ka bartay iskoolkii leegada oo waagi damban aaba maamulo ka noqday 1957 cabdi isla iskoolka oo ka baxay leegada ayuu macallin ka noqday 57 ilaa 61 asagoo macallin ka ahaa 61 ayuu ku soo biiray wasaaradda warfaafinta wariyaasha ugu horeeyay oo wasaaradda ka shaqeeyay markuu ii sheekeeyo taariikhdaas iga sheekeeyo cabdi wuxuu dhihi jiray qaabka aad hadda saxaafadda maanta ku shaqeynaysa iyo qaabkan ku shaqeynayna wax kala duwan waaye 1963 Allah u naxariistay walaalkay cabdi xaaji wuxuu mataqaanaa asaga loo diray magaalada Moscow team oo mataqaas lagu aasaasay laanta af Soomaaliga radio Moscow ayuu kamid ahaa ilaa iyo wuxuu ka shaqeynayay 17kii ayuu ka shaqeynayay laanta waa soo noqon jiray dalka waa imaan jiray laakiin xilligaas wuxuu ka shaqeynayay mataqaanaa laanta af Soomaaliga Moscow. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug State Cabdi Xasan Cabaale Qeybdiid oo ku sugnaa halka uu aaska ka dhacay ayaa Allah ugu bariyay in marxuumka dhintay uu jannada ka waraabiyo. u ducaynayna inuu maaragtay naxariistiisii inuu siiyo wuxuu ahaa waxaan uga tacsiyeenaynaa Soomaaliya oo dhan bahda Soomaaliya saxaafadda Soomaaliyeed warbaahinta oo dhan qoyskii iyo eheladii iyo walaalihii iyo caruurtii iyo reerkii uu ka geeriyoodayba waxaan maaragtay u leenahay samir iyo iimaan ayaga Allah ka siiyo asagiina Ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo Allah u naxariisto cafaaliya masaabax ummadda Soomaaliyeed inay cafiso u ducayso walaal aan dhib lahayn Soomaaliyana u soo shaqeeyay taariikh fiican iyo magac fiican ku dhexlabo ahaa. cabdi xaaji goobdoon ayaa 1938 ku dhashay magaalada Jigjiga ee dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. waxa uu waayihiisii waxbarasho ku soo qaatay Muqdisho waxa uu soo noqday macallin wariye iyo shaqaale wasaaradeed. waxa lagu xasuustaa waqtigii badnaa ee uu ku bixiyay soo nooleynta afka hooyo iyo dhowridda hidaha Soomaaliya. 22kii bishan ayuu markiisii ugu dambeysay ka soo muuqday munaasabad lagu xusayay 43 sano guuradii ka soo wareegatay markii la qoray afka hooyo. waxaan la shaqeynayay oo gudoomiye ku xogeen waa wasaaradda waxbarashada walaashay Khadro. waa markii ugu horeysay qof dumar aan madax ay noqoto aan la shaqeeyo taariikhdeeda nolosha walaashay intaa wada shaqeynaynay waxaa soo gelaya meesha howlo waxaan aad arkaysaan kharash baa ku baxay si kastaba ku yimaado kharashkii waa lagu xisaabtamayaa waa la isku qabsanayaa markii la yiraahdo meeshaan 1000 bay u baahan tahay ma yeeladay 200 iyo 300 ba dhaafayso waa ku guuleysanay.